بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامج كني كسب سنة فاسألوا أهل ذكري إن كنتم لا تعلمون وبرنامج تتبادل وأيدين سود يارسي منظمة الإحسان للرعاية الاجتماعية برنامج كان waxaad ka daalacan kartaan webpage-ka mu'asasadu ay leedahay ihsanmedia@gmail.com su'aalahana waxaad ku soo hagaajin kartaan sanaadiiqda ku rakibay masaajidka iyo emailka ay mu'asasadu leedahay ihsanmedia@gmail.com barnaamijkan waxaa si live hadda loogala socdaa halgan radio oo ah radio islamic oo caalamka oo dhan laga dhageystay internetkana ku shaqeeya waxa kale oo si toos looga dhageysanayaa radio al-Hikma oo ka shaqeeya gobolka Puntland iyo radio Nuur oo ka shaqeeya gobolka Banaadir waxa kale oo sidoo kale laga dhageysanayaa iyaduna wanan foga oo ah qol dacwo ah oo conference call ah oo isaguna ka shaqeeya guud ahaan caalamka waa laga dhageystaa si gaar ahaan waxa aad looga isticmaalaa waqooyiga America Canada iyo Mareykanka fadhigeena caawa waa fadhigii lixaad su'aasheena caawan waa su'aasha 9 سؤالشني وحي soo martay Sheikh Abdul Qadir Sugulle oo ah ducaada kamida masjidka Al-Huda ee Finland Abdul Razaq Sugulle Sheikh Abdul Razaq wuxuu leeyahay gabadh baa waxay tiri oo iyaga u tagtay waxaan wada soconay wiil kadib waxa ina dhexmaray gogol dhaaf zino waxaan hadda ogaaday inaan leeyahay uur 10 cisho ah wiilkii wuxuu igu yiri aan isxalaashano maadaama waxay leedahay gabadhani maadaama ilmahani caloosha galay ay ku galeen si khalad ah suurgal ma tahay inaan iska soo xaaqo maadaama ay yihiin 10 cisho oo kaliya ilaahina aan uga toobad keeno mana rabo inay caloosheeda ku jiraan ilmo zina ah hadii aan rabno inaan hadda isxalaashanana hadii aan rabno inaan hadda si xalaal ah isu guursano ma isu guursan karnaa jazaakallahu khayran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب يسر ولا تعسر سؤاشاس وعي تلمامي سارنتي نستيجد حن خلال آخرية أدوم با قبصنا يسا روحا كفض ضاده zinada ceeb adduunka ah iyo aakhiro laga yaabo in loo ciqaabo saas daradeed in aad looga fogaado zinada iyo asbaabta keenaysa ayay darsi u tahay oo ka faa'iideysanayna qodobka labaad ilmuhu haddii uu uurka galo oo xayawaanka manida la socda iyo ukunta hooyo ay isgaadhaan oo isla falgalaan inaan la soo ridi karin marxaladu dooni ha joogo bilow ha ahaado dhexda ha maro nafta ha lagu afuufo inaan la soo ridi karin marxalana ayaa wuxuu yahay madhabka jumhuur ahli cilmi ama culimada badankood ay qabaan maalikiyada xanafiyada qaar kamida shaafiiciyada ay madooda rag kamida maraya sida al-Imam al-Ghazali ibn Hajar al-Haytami al-Imam al-Izz ibn Abd salam iyo xanaabilada ay madooda qaar kamida nasaas rajaxayaan sida al-Imam ibn Rajab ibn al-Jawzi Sheikh Islam ibn Taymiyyah waana madhabka ahlu dhaahirka ama dhaahiriyada bimaana hatta afartan bari inta ka horeysa tobanka bari oo horeysa waqtigu dooni ha ahaade inaan la soo ridi karin ayay culimadaasi qabaan waana sida saxda ah waxa kale oo sida qaba hay'at kibar ulama mamlaka al-arabiyya saoudiya culimada saoudiga waxana adillada loo daliishado intaan arkay ila fiican xadiidka fi sahih muslim ku yaala nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa la weydiiyay azligu waa in biyuhuba intaynan gaadhin hooyada minkeeda in xubinka taranka la soo saaro banaanka biyaha lagu daadiyo
taasaa nabiga la weydiiyey sal alay waslm isagoo ruuxu markaa ka cararaya inuu ilmuhu uur galo nebigu sal alay wasalam wuxuu yidhi dalika alwa'du alkhafi waa xabaal nololin qarsoon yacni waa ilmo la dilay si qarsoodi ah tiyoo yaro qarsoon waaye ayib haddii biyihii oon weli ukunta hooye la falgelin bannaanka in lagu daadiyo uu nebigu ku tilmaamay sal alla alay wasalam inay tahay xabaal nololin qarsoon biyihii oo ukuntii la falgalay oo abuurkii bilowday soo rididdiisa way ka sii xag jirtaa maxaa yeele markaa hore ismaba gaadhinba waa biyo keligood arrintaasi marka waxay tilmaamaysaa aadamuhu midda kale dhakhaatiirtu waxay ihbaatinayaan oo isla ogol yihiin kulanka biyaha iyo ukuntu haddiiba usbuuc ka soo wareego jaa waa bilowday markaasba samaysankii waa bilowday laakiin waa qarsoon yahay saas daraaddeed sida raajixa xoogga badan waxa weeyaan inaan la soo ridi karin ilmaha uurka ku jira marxalo maraaxisha ka mida ama bilow ha ahaado ama dhexda ama ay marxalo min almaraaxil saasaa xoog badan taa waa taas saas daraaddeed ruuxa zinada ku dhacay sida gabadhaasoo kale oo ilmo uurkeeda u galay in haddana lagu daro in la dilo la soo rido waa dembi haddana dembi kale lagu saxayo waa saas daraaddeed arrintaasi ma bannaana kow su-aasha waxaa ka mid a iyadoo uur leh oo ilmihii uurkeeda ku jiro ma la guurin karaa oo ninkii ma isguursan karaanoo siday soomaalidu tidhaahdo ma la ysku ceeb asturi karaa taana iyadana nikaaxaasi inuusan asaxaynin ilaa ay uurka zinadaa umusho waa madhabka imaam maalik thawri isxaaq ibnu rahwiya abu yuusuf alimaamu alawsaaci culimmadaasi waxay qabaan haweenta uurka zinada ah leh ee xambaarsan ilaa ay umusho inaan la guurin karin laa kii ka zinaystay inaan loo guurin karin walaa ku kale inaan loo guurin karin iyadana waa sida xoogga badan waase masale khilaafiya oo imaamu shaafici iyo culimaa qabta in guurku uu guntamayo taana waa midda amaa markay umusho kadib oo ilmuhu bannaanka yimaado ama iskiiba u dhinto laga yaaba inuuba uurka ku dhinto markii caloosheedu bannaanaato kadib ma isguursan karaan jawaabtu waa haa cinda aljumhuur guurkoodu waa asaxayaa labadaa kala zinaystay ee aynan uur zina lahayn in guurku isu qabanayo qaybo saxaabada ka mida qaba iyo taabiciinta waana madhab imaamu thawri shaafici waana sida uu rajaxayo alimaam ibnu lmundir calayhim raxma jamiican bimacnaa way isguursan karaan haddii ay umusho oo alkhabiihaatu lilkhabiiiin waalkhabiiuuna lilkhabiihaat dadka saasoo kale ee kala zinaystay way isleeyihiin dadka aan zinaysaninee alطayibaatu liطayibiina wاطayibuuna liطayibaat iyaguna waa isleeyihiin sidaas daraaddeed maadaama labaduba ay sunnaad yihiin guurku waa isu qabanaya laakiin waa goorma waa markay umusho kadib intay uurka leedahay sida raajixa ah caqdigu ma qabanayo mana guursami karto wallahu aclam